aqoontii mujaahidiinta yihiin marka waxaan u baahannahay inaynu hal abuur doono ee aynaan cid wax ka sugin annagu dawlad ahaan waxaan ku maqannahay laba qodob marka koowaad in dalka nabad aan ku xasilino laba inuu dadku is-aamino wax wada qabsado saddexdii sane dawladda labadii sane hore waxay ku dhammaadeen xanaftii iyo colaaddii ka dhalatay doorashada waynu isla qaadanay waa dimuqraadiyad laakiin dhib bay noo keentaa inagoo dagaal ka soo baxnay inagoo wada agoon iyo wada xanaf leh oo isu wada cadhoonayna oo wax wada dareemayna ayaynu haddana dimuqraadiyad aynu galno xanuun baa yimid markii foodkii dhacay reeruu noqday reerkii laga badiyo wuxuu u qaatay ama codka laga badiyaa wuxuu u qaadanayaa inay gabadhaa guurwaa tahay oo laga adkaaday oo laga xaraka qaatay u qaadanaya dabeetana wuxuu gelayaa dagaal sanad iyo badh waxaynu ku jiray inaynu xanaftii bogsiino oo dadka walaalnimada ku soo celino oo qoladiini guulaysatay oon odayga u ahay aynu wax walba iyaga u hormarno inu gacan walaaltino kaga daba tagno walaalow codun baynu kala helnay walaalnimadu waa halkii beritaad heli dad kii qabtaaba unbuu tari doonaa iyaynaan coloobi ilaahay mahaddii wax ammaanta colaad reer laba reer oo la dhex galo oo la dhex fadhiisto o lagu raago tii ugu dambaysa waxay ahayd meel la ydha ala caddeeye waxaa garanaysaan boolaha xargaya dhegdheer sheekada waanu haynaa war malay macruurta dhegdheer dhimata waynu haynaa oo hay boolaha xargan nin duulaayo dabraa soo ma tidhaahdo waa dooxii boolaha xargegan ayaa hadda saddexdaa jiran ka yimaadeen taasi waa messajkaan usoo dhalinyarada kulli maanta aan soo warar dhan waan ku lahaa haddaynu galbeedka nahay yaasiin iyo qolada bargulahay maqasheen saddex hal baynu ku faannaa gobollada galbeedka marka laga soo bilaabo berbera ilaa iyo laweecad waxaanu nahay gobolladii nabadda alxamdulilah waa kow waa la nagu majeertaa waxaanu nahay gobolladii aqoonta alxamdulilah waa la nagu majeertaa waxaanu nahay gobolladii cagaaraa taana waa laynaga sugayaa waxaanu sheeganay nabaddii inagu waanu fidinaa marka runta si aan isweydiinay innaga nabad mana runta aan isweydiinay inagu nabad mana inta calaxayd saaka maxaa ka socday gobolladii nabadda aynu nahay haddii la ydhaha masquul baa laqodayana waa la isshiidaya waa la isku qabsanaya waa calaxayd waa inaga abtiyaasheen dee waxaaso dham odayaal iyo dhalinyaro tabliiq baynu ubaahannahay waa haddaan tabliiqa maarata fi akhirada waxay ku jirtaa inaynu dadka nabad iyo waxaad qabsi ka bilowna war ubaahannahay waayo jabuuti baa waxaan soo arkay cafar iyo soomaali intay istiilaan heshiiyado dabeetana milix u samaystay deked ay sanadkii ka helaan intaasoo boqoloo milyan milix baa dekedoo samaystay caqligna miyuu gelaya china warshad u sameeyey dekedna wuu u sameeyey maraakiib baa laga raraa dahabkaba tu aan laga helin baa laga helay intaasoo shaqaal intaasoo lacag isa wax lamid aynu hayna markaa nabaddii ah laynaga helo waxaynu dhaa dadkii aqoontaynu nahay aqoontii inagana haynaga muuqato hal abuuraan keeno dadkana aan ku fidino waynaba innaga gobollada galbeedka waxaa tusaale ah oo sharaf u yeelay oo laydinku ixtiraamaa oo ninka beri jooga adhijirtiisa iyo odaygiisa iyo sheekhiisu waa idinku ammaanayaan inamadii ciidamada ee sanamu badnaa ee militariga ahaa ee galbeedka ee bari qabtay meelay tageenba ee cabdillaahiyo kamid yihiin nuuxiyo ayaa qof wal u arkay majeeranaya nimanka gobta xay ka yimaadeen oo ku wada gaboobay oo dalka say u daafacayeen odayaal ku noqday oo aabiyaashiin qaarkood ku jiraa ayaa tusaale wanaagsan dalka noqo dhinacaa dhisay dawlad kale may dhisteen waa cuqaal waa maamul waa wadaado waa niman nadiifa waa ciidamada qura ee 10 sano joogay ee tiradaa dhowrka qura meesha ku jooga een wali reebari ka sheegan wax alliyo wax ciidan lagu xantay iyo wixii ciidan loo jiray nin baa la dilay qof wadumi lagu xiray gabar baa la faraxumeeyey nin baa